qaar ka mid ah salaadiinta gobolka Maroodijeex oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay si adag uga hadleen salaadiin ku hadlay magaalada Muqdisho kuwaas oo sheeganaya Somaliland waxayna digniin u direen dowladda dalka Soomaaliya iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa madax dhaqameedkaasi Cabdiqaadir Maxamed Waxsan Ariel TV Hargeysa loo socono reer Somaliland waa la yaqaanaa gobonnimadeeda waxay ku heshay waqti dheer iyo dagaal adag iyo waxay u soo martay halgan qaraar bay u soo martay waxa raga lagu siiyay oo loo horay ma ahayn oo la siiyay cidla laga qaatay waxay ahayd wax ku jooga qiimo adag ku jooga weey nin kasto reer Somaliland uu og yahay arintaasi loo xaqiijiyo oo dhiiga loo soo daadiyay iyo dadaalka ay hawsha adag loo maray si loo xaqiijiyo Somaliland waxa la gaarsiiyay in qof iyo cod looga qaado jirtaanka Somaliland si loo taabageliyo arintaasu waxa lagu codeeyay oo 1900 aftidii dastuurka lagu codeeyay in qaranimada Somaliland la xaqiijiyo gii ugu horeysay buu yiri dekada waxba lagama soo dejin karo afweyna waa ilmaadeen laakiin ku cibro qaadan maayo waxaan leeyahay xamar Somaliland saaka baqa loo baqanayo iyaba way garanaysaa idinba way garanaysaa in saaka loo baqanayn nimankii lahaaba jooga Hargeysa jooga waa nimanka la isku turtuulayo sidii meesha lagu keenayay imika la isku haysto ay ku tagayeen la isku haysto niman Soomaali taagna codka shacabkana wuxuu helay 50% halka baartiska kale ay inta kale ku tartamayaan marka halkaas iyo ninka de 100 xildhibaano kiiba $30 ku taagan yahay doorteen waxay meeqaam kala joogan international community guna waa og yahay annana waa ognahay iyaguna waa ogin laakiin kulli waa iska waa macna aan la garanayn wax wala qori afkii ka dhacbana lagu isticmaalay hayeeshe waxba wana laga qaadi waayay waxa ka dambeysay wixii waxa sameeyay baabeen annaguna dhisanay maanta kuwa xamar ka taliya waxa lagu ilaaliyaa beebeye dhexdood ciidamada Afrikaan oo Afrika laga soo ururiyay baa ilaaliya way tashan kari waayeen ummad baa u talisa inaga luntay 60kii origaasan ku haray wixii igaga baxay rag iyo maal maanta waxa la maayo maxaad maalinta waad weyd haweenuu waa maqlaysan maalintii la weyto caalamka beesha caalamka wuxuu ku yiri waa maqlaysan adan waxaan sii jeedaa magaranaysa xamar noo soo marnay iska tagay bukuur arinta ka soo baxday aad iyo aad baan u taageeranaa war nimanka xamar tagaya ee ka sii socda ka soo socda meeshu burcama madaxweyne عفس العافيات دايو هذا محكمة وجودبي أبال كودا محكمة وجودبي هدي ما تعد نجا وكيل أي تريسو سدا كوا لو شعيبة لو شاعن لها عد ما تسمى لين متشة أو كونفور كلها اللي كرتها أو أنت ستور كيجيو إن صامر النظام كيجو مترتو منا أقول سنين وحن لنا هاي كونفورية ده نوجا بهن ما تينا بختينه نايل برارة بعدش نايل برارة أياد نشة qaar ka lagu ridaa maalinta dambe waa baba waxa arkaa tacawo meel maraysa xaguu ku yaqaanay anna caanahay iyo hees booliska anna caanahay iyo wanka xuduudda weyn iyo caaqayga ugu furan waxa ilaahay nasiya lagu filan wax beedan bixiyo xamar siiya saasa baan qarqaraysi Cabdiqaadir Maxamed Waxsan Ariel TV Hargeysa